رسول الله صلى الله عليه وسلم horta aad baan idin salaamayaa inta madaxda gudoomiyuhu ugu horeeyo oo caaqilka ku xigo iyo hablaha ka soo qayb galay muhiimadda horta halkan aanu isugu keenay waxa weeyaan maanta inaad ogtiin in kale mooyaan wadankii waa la ictiraafay haddii la ictiraafay waxa isweydiin mudan goobaha kala duwan ee laga shaqeeyo maanta haddii ay tahay dhismaha iyo haddii ay tahay meelaha kaleba waxa jira dad badan oo ajaanib oo ka shaqeeya dadka ajaanibka ah cid ay u shaqeeyaan waa dad ganacsato ah oo shilin bashilin saaraya sababta keensatay qof ay lacag badan ku baxayso in maanta dibadda inta looga yeedho tusaale ahaan qofka injineerka marka loo yeedho Kenyaatiga waxa la siiyaa accommodationkiisa oo ku jiro cuntadiisa halku seexanayo mushahar adiga lagu siin lahaa mid ka badan waxa keenaya in la dalbado jacayl iyo promotion loo sameeyo ma aha ganacsatada ay u sameynayso sababta keenaysa waxa weeyaan tayadii iyo xirfadii dadku binaadinka waxay ku tartamantayo ma aha inaad barato inaad wax akhrido iyo inaad sidato shahaado muhiimaddu waxa weeyaan jaamacadii markaad ka soo baxday awood intee lag bad u leedahay in aad sanad kaamila aad CV sidato tusaale ahaan oo kale awood intee lag bad u leedahay inaad tiraahdo shaqo heblaayo intaas oo xirfadood bay iga dhiman oo aanan haysano aad intaad soo barato deetana aad ku dagaalanto marka guud ahaan horta research-ka markii aanu bilaabaynay waxa naga caawiyay shirkadda Qalib Engineering oo bilowgeedii maaragtay hawshan la gashay muhiimadeeduna waxay ahayd in la ogaado sababta dadkii dhalinyarta ahaa ee wadanka joogay ee wax bartay ee cilmiga engineering ama dhismaha bartay ay wadankii bilaa shaqo u yihiin waliba gaar ahaan dumarkii oo iyagu markay noqoto saamigii shaqada suuqa yaalay ay aad uga sii hooseeyaan iyo dadkii ajaanibka ahaa imika tusaale ahaan oo kale markaan research-ka wadnay waxa noo soo baxday in Ugandiska jooga in ay 5,000 oo qof ay yihiin 5,000 injineeramooda ah oo dabcan way kala duwan yihiin laakiin way ku jiraan injineeradina 5,000 ee qof waa 5,000 oo qof oo shaqooyin kala duwan u haya maaragtay maanta mujtamaca adigu inaad qabato kaararkii aanu idin qaybinay maanta waxa ka muuqatay in aanu horta barnaamijku wuxuu ku baxayay ala sharaf ra'iis maadaama maanta madaxweynaha Soomaaliland uu maaragtay bulshadii wax badan u qabtay barnaamijkan waxaanu ugu talagalay in ala sharaf ra'iis uu ku baxo dadkana bal horta lagu baraarujiyo qaranka iyo maaragtay bulshadaada ama reerkaaga ama madaxweynahaaga sidee baad u garab istaagi kartaa ama garab istaagu waa noocee garab istaagu ma aha in inta media soo istaagto aad ama reer ka caydo ama aad qadaadweyn ka caydo ama aad adoon waxba taay baatoon ama bilaa shaqo inaad tirahdo qaran baa difaacaya muhiimadda koowaad waxa weeyaan horta qarankan ka mid baa tahay ismeele saad soo meelayn kartaa qofka bini'aadamka hadduu desire-ka leeyahay iyo inuu maaragtay uu ay ku jirta raqabadii inuu wax soo kordhiyo horta wax uu gaadhaya horta taa intaasan ku dhaafayaayo sababta aan uga jeednay garab istaagu waxa weeyaan in qarankii iyo madaxweynihii iyo dadkaagii baad ku garab istaagto issue bulshada dhexdeeda ka jiray ama caafimaadka ha noqoto ama biyaha ha noqoto ama waxbarashada ha noqoto oo 24 saacadood waqtiga shaqeynaysa mooye intii kale aad maaragtay waxaad ka qaban karaysaa ka qabatay horta garab istaagu horta waa taa weeyaan inta aanu maanta community-gan isla inaad u samaysaan waa taa weeyaan in bal bulshada laga wacyigeliyo waxyaabahan qaldan ee imikayna soo galay waan idin sheegi doonaa horta wixii istaaraysa ka soo baxay research-ka laakiin waxa isweydiin mudan caqabadii soo baxday markaan ogaanay waxa la isweydiinay maxaa keenay imika tusaale ahaan oo kale baraha bulshada maanta Facebook-ga iyo social media la isticmaalayo marka laga yimaado wararka lagala socdo iyo siday wax u socdaan waxa jira saameyn gaar ah oo uu ku leeyahay maskaxdaada gaar ahaan maskaxda waxa jirta waa laba qaybood weeyaan waa subconscious mind-ka iyo conscious mind-ka conscious mind waa kan aynu ku wada hadlayna imika ka kale laakiin waa kan noloshaada maamula dabcigaaga haya wixii maaragtay la qabatin naftaadu la qabatintay haya waxa isweydiin mudan haddaba sida caadiga ah marka bini'aadamku ay doonayaan inay horumar sameeyaan caqabadii jirta ayaa horta la soo bandhigaa caqabada kow maanta bulshada ama dhalinyarta Soomaaliland hoos ula degtayna waxa weeye waa baraha bulshada halkan waxaan idinku soo gudbin doonaa research-kii iyo wixii nooga soo baxay اللهم صل على محمد horta sample-ku wuxuu ahaa 100 graduates oo hayo arday kala duwan oo jaamacadaha aanu ka soo xulay Admas iyo jaamacadda Hargeysa iyo New Generation gender-koodu wuxuu kala qaybsamayay 63.2 oo male ah iyo 36.8 oo female ah majority age-koodu wuxuu u dhaxeeyay 20 ilaa 25 intii maaragtay survey-ga aanu ka qaadnay jaamacadaha boqolkiiba 9 waxay ahaayeen gulis ardaydiina la qaadatay hawshan la waday boqolkiiba 3 Admas bay ahaayeen boqolkiiba 8 jaamacadda Hargeysa ahaayeen waxyaabaha aanu doonaynay in bal la saaro maaragtay ama tick box-ka ay noqdaan waxay ahayd waa training quality
maadaama qofku shaqo engineering ku shaqeynayo dhismo ah shaqadiisu waxay u badantay technical bay u badantay marka training quality gaad qaadatay ama qofku soo qaatay yani tayo intee lag buu lahaa laabka ama qalabka laabka wax lagu dhiso inteebuu ardaygaasi saddexdii sano wax dhiganayay uu access u helay allahumma salli ala maxamed internshipka imika waxyaabihii soo baxay waxa kamid ah waxa jira ardayda wax barata ee cilmigan baratay markay jaamacadaha internship ka galaan waxa noo soo baxday in inta 3 bilood ama 6 bilood oo internship qofka la siiyo bisha aakhirka ah ee uu dhameyn rabo ama ay ahayd in mushaharkii loo bilaabo in qofkii shaqada laga saaro iyadoo halka ay ka soo baxday in lagu shaqeysanayo magaranaysa ardaydii oo qofkani ka doorbidayo intuu assistant lacag caadi siin lahaa inuu qof internship ka helo internship-kana mid kale uu ku bedelo waxa kaloo kamid ah skills-ka waxa la yiraahdo xirfadda waana waxyaabaha maanta bulshada Soomaaliland hadii ay noqoto dhalinyarta ama dadka shaqeeya waxyaabaha aadka hoos ugu dhigay keenay in dad maaragtay ajnabi ay suuqi qabsadaan horta waa skills-kii xirfad totally wax la yiraahdo ma lihin qofkii jaamacadii uu tagayaa jaamacadii wixii ka dhinaa imka tusaalahaan oo kale tusaale yaro gaaban baan idin siinayaa jaamacadaha marka laga qalin jabinayo waxa jirta bahal yaro dadka loo xidhay cabaadan la xidhay lagu qalin jabiyo cabaadaas lacag weeyaan markuu qofku qalin jabiyo waxay ahayd waa qalin jabintaadii weeyaan waxa laga yaabaa mid intaas oo generation ay ku soo qalin jabiyeen baa qofkii maaragtay uu ku qalin jabinaya at the same time waxa lagu oranayaa ilaa aad lacagteeda bixiso aad soolana celiso shahaadadii baa lagaaga xidhayaa xaggii ka ardaydu hadii no just simple hadii no oran lahaayeen de waa laga deyn lahaa laakiin ardaydii waxa ka maqan maanta waxba idin ka maqan qofkii wuxuu ismoodaya maanta jaamacadaha Hargeysa markuu ka soo baxay armasi kuwa kale iyo ta Hargeysa tayadoodu nooc doonto ba ha ahaato inuu qofkaasi tob yahay isku haysta dhibaatadu halkay ka timid bulshaduna markay jaamacadaha noqoto de waa halka ugu horeysay aqoonta iyo xirfadba halka laga bilaabo weeyaan allahumma salli ala maxamed way hadaba training-ka iyo preparationka jaamacaduhu ay u diyaariyaan ardaydu markay maaragtay jaamacadda ku jiraan gabigooduba 2% ayaa ku sheegay training-kaasi inuu excellent yahay jaamacaduhu ay gudbiyaan for example oo kale career office oo kale jaamacadaheenu ma laha qofkii markuu qalin jabiyo halkaas uu ka baxaa waxa laga yaabaa qofkii oo secondary-gina English ku soo dhiganayay jaamacadiina ku soo dhiganayay English in aanu de one formal letter aanu qori kareynin writing skills inaanu xabad ka garanay CV dhameystiran ama CV agaysan xataa inaanu qori kareyn waana waxyaabaha keenaya maaragtay in uu qofkii hoos u dhaco waxa kale oo noo soo baxay access lab-kii 60% waxay sheegeen inaanay ardayda aanu ka qaadnay 100 ahayd in 60% aanay access lab totally aanay helinba qofkiina waa qof engineering ah oo technical ah oo farsamo gacmeed gabigiisa shaqadiisu ay tahay allahumma salli ala maxamed skills-kii waxa jira 26% baa sheegay skills-ku inuu xagga jaamacadaha markay skills-ka ay dadka barayaan inuu sax yahay communication-kiina waxay sheegeen 22% project management-kiina 22% way waxa kale oo jirtay iyaduna employment outcome-kii oo maaragtay fiilka ka jiray allahumma salli ala maxamed iyo job method-kii iyo curriculum relevance-kii intaasiba waa waxyaabaha maaragtay maanta keenay in ardaydii maanta cilmigan baratay ay hoos u dhacdo haddaba muhiimadda koowaad waxa weeyaan barnaamijkan markii aanu sameeynay waxaan ugu talagalnay muddo ilaa adigu dhowr bilood baan wadnay waxaan ugu talagalnay in aanu noqonin wax inta halka lagu soo bandhigo oo maaragtay oo halka laga yar qodbaday halka laga tago waxaanu diyaarinay team ka kooban adigu ilaa 150 qof ka kooban baanu diyaarinay waxa jira platform la yiraahdo NAS.io la yiraahdo oo maaragtay trainada lagu bixiyo barnaamijka insha Allah bisha soo socotaan isla daa furtaan magaalada maaragtay ku shaacisaan waxaan ugu talagalnay imika inteena halka fadhida hadii aynu iska kaashano bulshada waxbarashadeeda inaynu horumarino waa wax la sameyn karayo maanta waxbarashaduna qofku iyo inuu qofku barto horta inay wax ka dhiman yihiin waa aslul mushkila waa halka ka fahmaysa inay wax ka dhiman yihiin waa marka problemkii garato markaas aad halkii la iman kartaa marka waqtiguna kulli salaadii baa taagan oo inagu gaaban yahay waxaan rajaynayaa insha Allah hawsha in aad qayb ka noqotaan oo community-gaas maanta xaflad kaliya idinku maana yeedhin waxaan idinku yeedhnaa insha Allah community-ga markaan caadi u daahfurno maaragtay research-kan kadib aan u daahfuri doonaa insha Allah programu yeelan doonaa halkaas aad ka arkaysaan wuxuu yeelan doonaa podcast gaar u yeelan doonaayo bal bini aadanku wacyigelin ba maaragtay qofka bini aadan wax laga bedeli karaa maanta tusaale ahaan oo kale waatida carabtu waatida maanta taqarraro qofka wixii lagu soo celceliyo subconscious mind-kay gashaa dadna qofka dabci bay ka noqotaa hadhow kuma adkaata marka inuu waxa sameeyo waxaan rajaynayaa inaad qaybtaan maaragtay aad ka qayb qaadataan insha Allah waanu idin la soo xiriiri doonaa waanu maaragtay inaad platform-kan aad qayb ka noqotaan oo cidii cilmi haysa cidii maaragtay aqoon nagu kordhinaysa cidii hadli karaysa in bulshadii maanta inteena halka fadhida waxba bedeli karnaa in aynu isku daynayno wax ka bedelo aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh